السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام وإذن السلام عليكم قالوا ميل بودون كاد كجوكتين وبلاشين مريم السود وذي إذن الله هاي سو ولا له قالوا وحرام مانتين نيجو جيسي هرت مقالك وحسوق ليه جانل كان كليته أو مريم وقرنيد أين سوق ليه مركا جانل كاس وحرمي إن رمضان كي أنتو صندلن كورا سوق ليه سيدا قروا هجاجي سو مركا جانل كاس حد كدي بمشاقين دونه sababtoo ah ciladii uu hadda ka hor ku xirmay ayuu ku soo laabtay soo anigana waxaa go'aansaday muuqaalada dhan inaaba ka xirabo ma fahanteen hadda iyo wixii ka dambeeya ma shaqayn doono soo waxaa idinka codsanayaa inaad channelkaniti oo dacwan iskaashi family ay ku qoran tahay inaad wada imaataan muuqaaladeena hadda kadib inta laysoo wada gelin doonaa ma fahanteen hadday routine ahaan lahayd hadday vlog ahaan lahayd wax walba intaa soo gelinaya insha allah sababtoo ah hadda diyaar u mihi inaa youtube kale cusub afuro wayna igu adagtaa waqtiga inaa youtube kale afuro ma fahanteen soo marka insha allah muuqaaladeena dhan intaa soo wada gelin doonaa muuqaaladii u dambeeyay oo hadda aan geliyay youtube kaas kalena inta ayaa soo gelinaya markaa guriga hagaajinayay qaybta tv-ga markaa samaysanaya jikada markaa hagaajinaya muuqaaladaas intaa soo gelinaya sababtoo ah muuqaalo waxaa jiro markii aad samaysatid oo aad kasii maarmaynin ma fahanteen soo kuwaas camal waxaa rabaa inta inaan soo geliyo soo marka muuqaaladaas haddii aad hore usoo daabatay oo dadkii oo maxaa la dhahay dhinacaas igala socda haddii aad tahay xariif iska dhig muuqaalka ii daawa laag ii saar haddii oo hadda ee kuugu horeysana laag ii saar subscribe noo dheh channelkaniti laagtana noo saara taas ayaa idinka codsanaynaa channelkaasna waxaa muuqaaladiisa dhan aan private u geliyey waaba ku sanifaybo maadaama ee maxaa la dhahay ciladii ay kusoo laabatay wax uu faa'iido leeyahay malahan ma fahanteen soo marka aniga asaga dhan private geliyey wixii muuqaalo mudan oo xasuus ah oo mudan aan laga maarmi karin intaa soo gelin doonaa intaa keenayna wixii kalena hadda private-kooda ha iskaaga jiraan aan taaganahay waxaana u xiray si aad ugu wareerino oo inta aad ugu wareerin halkaa meelne aan nagala socotiin ma fahanteen soo marka subscribe noo dhaha laag noo saara intaa iskugu imaanaynaa hadda kadib aadaan u mahadsantihiin soo dhawaada walaalaha qaaliga soo marka intaas ayaa idin ogeysiinaya walaalaha qaaliga haddana waxaa idin sii deynayaa muuqaalkaniti codkiisa hore aan ku duubay waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak fii amaanillaah ilaahay aan ku shukrinaa maadaama aan soo gaarnay waayo dad naga horeeya ayaa waxaa jira aysan haleelin bishaan barakeysan ee ramadaan hortiisa uu ilaahay oofsaday soo marka ilaahay hadduu nu soo gaarsiiye aniga idinkaba waa inaa ilaahay ku mahadinaa ilaahayna hanaga dhigo kuwii nabad ku dhammaystay waayo nebi sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay habeenka ugu horeeyo ee bisha barakeysan ee ramadaan ay dhalato shahaadiinta kuwooda ugu madax adag kuwa waaweyn ugu madax adag waa la xiraa ayuu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam naartana waa la xiraa albaabaheeda oo dhan jannadana albaabaheeda oo dhan waa la furayaa wayunaadii munaadiyan malag ayaa dhawaaqa ayuu yiri nebiga sallallahu calayhi wasallam markaas ayuu wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya alshari aqsir qofka khayrka doonayo oo rabo inuu faa'iideysto soo qaabil qofka sharta wado sharta gaabsa ayuu leeyahay malaga habeen walbo bisha ramadaan ka mid ahna ilaahay adoomadiisa wuxuu ka xureynayaa naarta soo marka ilaahay hanagu daro kuwii naarta laga xureeyey ilaahay hanaga dhigo kuwii ramadaan ka faa'iideystay ilaahay hanaga dhigo kuwii maalmahan quruxda badan oo khayrka badan ka faa'iideysta allah hanaga dhigo soo marka walaalaha qaaliga intaasna waa waana yaro ani nafteeda iyo naftiina waa ku waaninayo soo marka haddii aan usoo laabano routiinkeena hadirta anaga waxay noo tahay habeenay noo tahay muuqaalkan waqtiga aan duubaya habeen waaye beriyo arbaca ahna ramadaan waaye alxamdulilah ilaaha mahadi iskale oo noo fudeeyey waxaan ku dhahay isjiid badan kadib meeshaana waxaa rabay inaan titiro hagaajiyo abu maxamed wuxuu taagan yahay kheyr allaha siiye mayuu taagan yahay anaa gurigaan titiraayo guri iima titiraysid walaala iga fadhiiso taagan yahay ma fahanti halkaas fadhiiso wax alla wixii la qabanayo ii sheeg ilmihii iska seexina markii ilmaha markay seexdeen kadib ayaa shaqadan qabanoonaa waayo ilmaha markay seexdaan noo buuq waxaa waa jawi degan ilmaha markii la seexiyey lee shaqa la qaban karaa ma fahanteen waa inta ka horeysa waxaa waa ayaga inaa attention siisid waayo oo maanta dhan cunigu wuxuu u baahday iyo cunto si iyo meeshii adoo titiraysa ku socdaan adduunkana meel la hagaajinayo ilmo ku socdaan waa necbahay ani waxaan dhahay iga seexda markay seexdaana shaqada qabsadaa ama markay meel iga fadhiyaan ma fahanteen soo marka ilmihii waasay seexdeen habeen waaye abu maxamed wuxuu taagan yahay walaalay intii tabartaada guriga soo tirtay hadda anaa guriga titiraayo goormay igu dambeysa gurigeyga inaa ani
maxaa la dhahayeen dhasta inaan qaata aa titiro mar hore ay ugu dambeysay ilaahay amarkiis haddii maanta la titiro muddo 3 bir 4 bir nadiifu iska yahay xaaqid la u baahanaya ma fahanteen oo inta ugu badan maba ii ogolaada inaan guri titiro marka asagaa titirooyo sababtoo ah ilmaha markay banaanka kusoo dheelayaan oo lugahooda dhiiqale ay kusoo korayaan jaraanjartii ay wasaq ay tahay markaasuu gurigii wasaqoowaa ma fahanteen anina ilmihayga banaan maba ku dheelaanbo hadiiba dheel ay noqoto iskuulka maalinta PE-da ay ku dheelayaan oo ilmaha ay la dheelayaan ku filan aan taaganahay guriga markay joogaanna ayaga hay isla dheelaan maray wax baranayaan maray iskuulkaas jiraan iyo maray jiifaan waay way yar yihiin badanaa ilmaha banaanka markii loo diro oo ilmo kale ay lasoo dheelayaan way is soo dilayaan way isdagaalayaan midba mid ka weyn uu soo dilaa rafaad dhibaato maba ka bixi karayaan taaganahay gurigiina iyo fadhiya ma fahanteen soo marka guriga markay ilmaha banaanka ee lugahooda dhiiqa kala imaanaynin nadiifuu ku ahaana inta badan ma fahanteen ilmahaagana intay yar yihiin gurigaa lagu haystaa waa ilmaha waxaa fiican inay gurigooda ku joogaan ay kugu ciyaaraan adduunka hadda waa iska xumaaday ilmo banaanka loo dirsanayo soo dheedheelayo ilmo kale lasoo dheedheelayo wax kasta kusoo dhici karo waa la dili karaa xaalad walbuu soo mari karaa cunuga meeqa ilmaa arkay oo banaankaas isku dilayaan soo marka waalidka waxaa fiican ilmihiisa inuu ka warqabo meeshuu cagtooda dhigayo ma fahanteen marka saasaa keenay gurigana inuu nadiif ku ahaado ilmahaaga markay luga nadiif leh ee guriga lasoo galayaan gurigaagana nadiif ku ahaanaya ma fahanteen soo marka ilmihii waxay jiifteen ayagoo dhahayaan maamaa biri ramadaan waaye wax dhanba noo samaynaysid miyaa ramadaana la galooyaay waayo waxay ogaayeen ramadaan markuu soo dhayaa guriga inaa la hagaajiyo ramadaanka wax loo sameeyo la toosinayo ogahayeen yaaban yihiinba guriga isdhexyaala jiifteen maamaal biri ramadaan waaye si camal khaasatan maryam ruuxii waxaan ku dhahay aad iyo aad ay ugu walwashaa biri ramadaan waaye waxa decoration ma sameynaysa wax masha sharxaysa miyaa maama ay ku haysa soo anna waxaa rabaa habeenkii inay iska seexdaan oo subaxdii markay soo kacaan ee surprise la noqoto sidan way dhacday markay sii seexdeen aan samaysan ma fahanteen soo frameyadana soo gagatay wixii adiga iska yar oo maxaan ku dhahay salaad see kuu qabataa loo tugtaaye sanadkan sida ii qabatay unbaa u sameeyey ma fahanteen soo frameyadana soo gaday maxaa la dhahay nalalkii iyo wixii oo maxaa la dhahay ramadaanka oo nalalka waa soo waayey wixii markaas soo helay soo gaday muuqaal kori wataa idinku sheegay meel kale ma uu sii aadin framekaas oo maxamed sallallahu alayhi wasallam ku qoran yahay waxaan kasoo gaday naag oo waxa gadaysi oo muslin ahayn gadaysi kiisa kale ma heesayaan dheemaheeye dhahda sababtoo ah macnihiisa maba kasaaye dhahda halkan xaba iska soo qaaday halkan xaba leena ii yaalo keenan dheh macnihiisa haddaa kaseeni macnihiisa usoo sheegay waana kasoo qaata waa jeclaada ma fahanteen aad iyo aad u qurux badan yahay allahuma salli calaa maxamed nabi maxamed magaciisa saas u qurux badan yahay markasto gorbafeedo waaye magaciisa qalbi dejiyo waaye waa midka markaa murugsan tahay dhibaataysan tahay haddii aa aqrisatid dhibaatada ay kaaga baxayso soo marka waaba kasoo tegi waaye ma fahanteen waa soo qaate magaciisa aad u qurux badan yahay gurigana uu ii qurxiyey ilaahay baraka iyo deganaan beydkayga ha ii soo geliyo النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa qof aad iyo aad u naxariis badan u naxariista masaakiinta yatiinta caruurta waayeelka xataa dadka asaga dhibi jira uu naxariisan jiray nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid dulqaad badan oo dhibaatooyinka u dulqaato wuxuu ahaa mid daacad ah oo waxaan ku dhahay run sheeg badan oo runta sheego ayuu ahaa samir badan dhibaatooyinka u samro nabi sallallahu alayhi wasallam subxaanallah يعني ما لسو كوبي كارو سفوين كيس ما لسو كوبي كارو إلها ما هذا إسكاله ما دام عن كم النهاية ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدي جعلك النبي صلى الله عليه وسلم دب إكاتا أو أدا أو جعشاي كلي وحقوق في المدة سلا رعدت أو كلي فمركز دبعته والبي قربك استي وحول بق أو كهايستو وحاجة بحكرتها النبي صلى الله عليه وسلم إنا محل لا يسلقي سأقرست ولبي إبراهيم يدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدي أكوع العلسيد وحير كدب وحا أركز أدو قلبي فرحة قلي محل لها كربدي إلهي وكاساري ماشي كل باتينيس أما كربدي أكدريميس إلهي خير وكاسو يرسي وانا بركو irsaaqadna waa lagu helaa markasto nabiga magaciisa waxa waaye qurbafeeda ma fahantay marka saas u soo qaata fiirso u qurux badan yahay oo maasha Allah u yahay
nuurkiisa baxaayo ma fahanteen soo marka waa soo hagaajin waa soo dhammaynay maxaa la dhahayeen waa u sheegay le Abu Maxamed asna khayr Allah siiye kan inta ku xirkan inta saan u saar leen dhahay ma fahanteen miiskan halahan yarka u soo gatay yacni wax yar oo maxaa la dhahayeen oo gurigii aan ku quruxsada leh aan soo gatay ma fahanteen ilaahay ha ii barakeeyo ilmahaygana waxaa subaxdii markay arkeen aaday ugu farxeen muhiimadda waxaa waaye guriga inay deganaan ay ka muuqato bisha ramadaan uu nadiif yahay uu degan yahay meel lagu cibaadeysto oo quraanka lagu akhristo inuu yahay ma fahanteen dhaxdaasna ilmaha waxaan u dhigay rooga u dhigay waa madarasadooda dhan meesha ay wax ku akhristaan waa ilmahayga ma fahanteen soo marka kitaabahoodii waxooda meesha ugu diyaariyey labada waaweyn qur'aanka ay ku jiraan soo muraajaca looga baahan yahay maalin kasta wardigooda inay akhristaan ma fahanteen soo marka ilaahay ramadaanka khayrkiisa hana waafajiyo barakadiisa raxmadiisa ilaahay guryaheena ha ku qorxiyo qalbiyadeena ha ku qorxiyo deganaan allah nagu siiyo dhammaanteena ilaahayna dhammaanteena kuwii ramadaanka laga aqbala allah naga dhigo waxaa waaye gurigeena anaga waxaa waaye maxaa la dhahaye qaybta jikada iyo cuntada iyo afaarahaas ma laisku weyneeyo because Abu Maxamed oo waxaa joogo maxaa la dhahaye 9 ku dhahayo waa subcinaynaa quraanka isla akrinaynaa ilmihii ayagana dhinac uu ka bushgaraynayo quraankooda iyo subcooda uu maxaa la dhahaye ka dhageysanayo soo marka ilaahay khayrka hanoo badiyo bisha ramadaan wax iska yar waaye kuwa ilaahay agtiisa khayr fara badan geysta allah naga dhigo ramadaan mubaarak asxaabta qaaliga muuqaalkan laag fara badan ii saara fi amaanillah